بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته guys. Today maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno ama aynu baranayna luqadda Soomaaliga. Cashirkeena koowaad waxaan uga hadlaynaa erayo fudud oo la fahmi karo oo qofka baranaya luqadan uu fahmi karo si uu hadhow gudaha u sii galo. Luqadan waa luqad fudud laakiin waxay u baahan tahay ku celcelin badan iyo faham badan. marka waxaan rabaa cashiradan aan ku bixinay luqadan Soomaaliga ah iyadoo English iyo Soomaali ah aan kugu daray plus Soomaaliga aad ku fahmi lahayd. marka waxaan rajeynayaa inaad fahanto luqadan aad ku baran kartaa free si xor ah lacag la'aan ah laakiin balse adigna qofkii baran lahaa luqadan. maanta waxaynu bilaabeynaa cashirkeena koowaad waa learning of Swahili, barashada Soomaaliga ama luqadda Soomaaliga. Ninafuraha kukutana nawe. Ninafuraha kukutana nawe. Macnaheedu ay tahay nice to meet you. Kulan xiiso leh. Nice to meet you. Maxaa waaye waa macnaheedu waa kulan xiiso leh. Okay, ereyga labaad wuxuu noqon doonaa jambo. It means hello. Iska waran, hello iska waran. So asxaab dad badan hello waxyaabo badan u yaqaanaan. Marka hello iska waran. Mambo, hi. Habari za asubuhi, good morning. Subax wanaagsan. Habari za asubuhi, subax wanaagsan. Good morning, it means good morning. Habari samjana. Habari samjana, good afternoon. Habari samjana, it means waxa waaye waa galab wanaagsan. Haddii lagu dhaho habari samjana, it means waa good afternoon waay. Habari za jioni, good evening. Maghrib wanaagsan, good evening. Maghrib wanaagsan. Lala salama, good night. Lala salama, good night. Uhaligani, it means how are you. Sidee tahay. Uhaligani, how are you. Haddii lagu dhaho uhaligani, it means macnaheedu waxay u fahmi kartaa inay tahay sidee tahay ama how are you. Asante, thank you. Mahadsanid. Karibu, you welcome. Soo dhawow, you welcome. Soo dhawow. Jina lako ni nani? What is your name? Magaca. Jina lako ni nani? What is your name? Last paper ugu dambeeyo aan kusoo gabagabeyn rabno waxaa waaye yulizaliwa wapi? Where are you from? Habana, no. Where are you from? It means where halkay ka imaado. Meeshan yulizaliwa wapi aka maqan wapi. Yulizaliwa wapi hadhow fahan marka. Where are you from? Halkee ka imaaday. Habana, no. Meelna. Samahani, waan ka xumahay. I'm sorry yaad dhahaysaa. Tafadhali, excuse me, iga raali noqo. The last ugu dambeeyo waa recommendation. Thank you for watching our first lesson. Waad ku mahadsantahay daawashada cashirkeena koowaad. We appreciate for you. Waan kugu mahadcelinaynaa. Waxaan kugu mahadcelinaynaa for your help on our YouTube channel. inaad nagu caawiso channelkeena, subscribe, like, comment, share. Okay, if you are interested to be continue, haddii aad xiisayso inaad sii wado our lesson, send a comment. haddii xiisaynayso cashirkan bulshadiisa inoo soo dir fariin. Let's see the next lesson move. waxaad arki doontaa cashirka xiga waa soo muuqaala insha Allah.